Asalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta isku soo noqod wanaagsan in badan aan ka maqnaayo youtube-ka runtii dib aan usoo laabtay aad aan ku hayso runtii sababaha la maqnaayana wax kale ma ahan waxaa waaye mashquul iska jiray marka ugu dambeyn alxamdulilah waan soo laabtay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo imtixaan la yiraahdo oo in badan dadka isweydiiyaan ardaydana inta badan runtii markay baaritaano sameynayaan ay arkaan oo la yiraahdo USMLE examination, okay? United States Medical License Examination loo soo gaabiyey. So imtixaankaas wuxuu yahay marka yaa loo ogol yahay imtixaankaas inuu galo maxaa waaye faa'iidadiisa imtixaankaas intee lagu galaa waxyaabahaas oo dhan arbaa maanta mawduuca uga hadla videoga USMLE examination waa imtixaanka saa geli kartid magaca waxaa laga leeyahay wadanka Mareykanka United States ayaa la yirahdaa Medical License Examination. So marka inta badan imtixaankan waa imtixaan caalami ah oo international ah waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka yaa gali kara marka imtixaankan runtii imtixaankan waxaa gali karo dadka u dhashay wadanka Mareykanka iyo sidoo kale dadka ajaanibta ee banaanka ka ee wadanka Mareykanka imtixaanka waa loo ogol yahay inay galaan imtixaankan marka maxaa waaye faa'iidadiisa imtixaankan faa'iidadiisa waxaa waaye haddii imtixaankan aad gashid wuxuu ku oggolaanaa in maxaa la yiraahdaa aad ka shaqaysan kartid wadanka Mareykanka dhexdiisa imtixaanka saddex qayb loo qaybiyaa USMLE step 1 USMLE step 2 iyo USMLE step 3 saddexdaas examination haddaa ku baasid macnaheed waxaa waaye waxaa ka shaqaysan kartaa ama lagu ogol yahay inaad ka shaqaysatid dalka Mareykanka waxay kusii doonaan waxa la yirahdaa license okay saa taqaanin gawaarida waxaa la siiyaa license oo aqoonsi ah oo lagu garanayo qofkan maxaa la yirahdaa inuu yaqaano gawaarida so sidoo kale ayagana waxay kusii doonaan license oo aad ku shaqaysan kartid magaalka mari kartid macnaha dhakhtar gooni oo takhasus qaatay oo meel fariistay inaad tahay ay kugu ogolaa doonaan so marka imtixaankan yaa la ogol yahay dadka Soomaalida ma loo ogol yahay dadka Soomaalida waxay ka mid yihiin dadka ajaanibta ah waa loo ogol yahay marka imtixaanka inaad gashid kaliya waxay ku xiran tahay jaamacadaada ma aqoonsan yahay waa wax ugu muhiimsan kaliya lagu weydi doono jaamacadaada haddii tahay jaamacad la aqoonsan yahay macnaheed waxaa waaye maxaa la yirahdaa imtixaankaas you are eligible waa gali kartaa imtixaankaas so see ku ogaan kartaa marka waxaa jira dictionary oo inta badan lagu ogaado jaamacadaada in la aqoonsan in kale dictionarygaas haddii jaamacadaada uu aqoonsado hoos linkiyaa soo dhigi doonaa jaamacadaada hadduu aqoonsado macnaheed waxaa waaye waa gali kartaa imtixaankaas marka so marka imtixaankaas lacagaa lagu galaa oo free ma aha step kastoo lacag uu leeyahay lagu galo so intaa u gelin lacagta waxaa rabaa inaan ka hadlo stepska step 1 waxaa sheegay step 2 step 3 step 1 inta badan waxaa lagu galaa step 1 inta badan waxaa lagu galaa basic science okay sida biochemistry and genetics immunology maxaa la yirahdaa microbiology iyo sidoo kale waxyaaba public health la xiriiro iyo basic cardiovascular system respiratory system maxaa la yirahdaa gastrointestinal system iyo waxyaabaha basic pathology basic ah iyo maxaa la yirahdaa pharmacology oo basic ah iyo ayagoo systemic ah labadaba waa lagu galaa marka imtixaankan marka inta badan intee laga diyaariyaa resourcing intee laga helaa waxaa rabaa inaan imtixaankaas diyaariyo video gooni uga hadli doono insha allah resourceska imtixaanka meelaha ugu fiican ee laga keeno iyo website-yada inta badan caalamiga ah ee laga diyaari karo imtixaankan marka haddaa usoo laabto step 2giisa marka step 2giisa inta badan waxaa waaye maxaa la yirahdaa waxaa lagu galaa clinical ayaa lagu galaa obstetric gynecology pediatric surgery internal medicine lagu galaa marka inta badan marka book laga diyaariyo waxaa loo yaqaanaa step 2 CK book la yiraahdo CK macnaheed waxaa waa clinical la xiriira marka clinical science okay so marka runtii USMLE examination haddaad rabtid inaad diyaarisid resourciga aad ka diyaarinaysid macluumaad badan ku saabsan video next uga hadli doonaa thank you so much